wadayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada Jubbaland TV. barnaamijka waxbarashada Jubbaland TV isbuucan wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta dhexe ee Jubbaland TV ee magaalada Muqdisho. Waxaa idin socodsiin doona aniga Cabdiqani Cabdullaahi. Waa duubistii iyo farsamadii Cabdullaahi Samawade. barnaamijka isbuucan waxaynu ku soo booqanay jaamacad SIU oo kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. waxaana waraysi kooban la yeelan doonaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada. aad mahadsantiin Jubbaland TV inaad soo booqateen boqolkiiba boqol waa idinka mahadcelinaynaa. taariikhda jaamacaddu waxay kamid tahay jaamacadaha ku abuurmay xilligeed ee dagaalada sokeeye markay jireen oo ay ka baxda meesha xukuumaddii waxbarashada dadka sii jirtay si ay u qabatay adeegga waxbarashada maaragtay loo aasaasay ilaa xadna wax badan aan qabanay arday badanna waa soo saarnay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay heerka aan soo gaarnay iyo maaragtay adeegga aan bixinay heerka aan gaarsiinay. والله كليتها جامعة بحس jaamacaddu waxay bixisaa kulliyado kala duwan ilaa 8 kulliyad 8 maaragtay faculties ah. waxaa kamid ah kulliyadda culuumta maaragtay dhaqaalaha iyo ganacsiga lagu barto. waxaa kamid ah kulliyadda lagu barto culuumta artska. waxaa kamid ah kulliyadda lagu barto culuumta medicine-ka. waxaa kamid ah health science kulliyad la yiraahdo oo lagu barto caafimaadka guud. waxaa kamid ah kulliyadda shariicada iyo qaanuunka. waxaa kamid ah kulliyadda waxbarashada. waxaa kamid ah kulliyadda beeraha. marka 8daas kulliyadooda jaamacaddu hadda bixisaa. ma jira kulliyado aad ku soo kordhisay jaamacadda sanadka hadda socda ma jirto kulliyad gaar ah lagu soo kordhiyay ma jiraan. waa korma xiliyada diiwaangelinta ardayda cusub aad qaadanaysaa sanad kasta waxaa ardayda cusub la qaataa sanad dugsiyeedka Soomaaliya oo ku beegan maaragtay August September sida caadiga xilligaas la qaataa ardayda cusub sanad kasta. macallimiinta qaabkee ku xirtaa macallimiinta waxaa lagu xirtaa recruitment process ka caadi oo HR ku sida iska international-ka shaqada waa la xayisiyaa position ka banaan markii la xayisiyo maaragtay dadku waa soo recruitment process la maraa waa soo apply gareeyaan. markay soo apply gareeyaan de waa la shortlist gareeyaa ka bacdina intii soo baxda waxaa loogu yeeraa maaragtay imtixaan assessment kala duwan oo lagu qaato macalinka loo baahan yahay. sida aan la socno waxaa jira kulliyado qaar waa theory kuwa qaarna waa practical. kulliyadaha practicada u baahan ma leeyihiin qalab iyo agab ama qalab ku filan ee waqti ku filan ama qaadan karaan. aad iyo aad jaamacadda muddadaas ay jirtay waxaan ku guuleysanay inaan sad upgrade kulliyadaha practicada waxyaalaha ay u baahan yihiin hadday agab tahay iyo hadday wax kale lagu tababarto tahay. waad arki kartaan waxaan leenahay laabab kala duwan hadday computer ka tahay hadday medical lab tahay hadday agriculture ka tahay hadday medicine ka tahay waxaan leenahay dhammaan maaragtay waxyaabihii loogu baahnaa in wax la barto. ardaygu markuu wax baranayo de resource kala duwan u baahan yahay macallinku qayb ka yahay laakiin resource kale aad u badan jira oo dhinac kasta marka intooda badan boqolkiiba boqol maahan laakiin intooda badan waan noo diyaar waa available waan dhisnaygaas. jaamacadda ma geestaa waxa qoysi ah wasaaradda waxbarashada jaamacadda aan wasaaradda waxbarashadu aqoonsi aysan siin maba shaqaysaba hadeer de aqoonsigu wuxuu ahaa stage bilow ah laakiin hadeer waa la isla gudbay oo wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha wada shaqeyn maaragtay wada shaqeyn ka dhaxaysa waxaa la sameeyay guddi higher education ah oo hadeer maaragtay bariyahan shaqeeyaba oo sida u kala saari lahaa jaamacadaha kala duwan iyo accreditationada departmentyada iyo faculties kala duwan ba ka shaqeynaya. marka aqoonsi hadeer waa la iskala soo gudbo halkaas la maraa aqoonsi waa leenahay waa wixii lagu bilaabo bilowga ay ahayd. markii ardayda ka baxa ama qaata shahaadada jaamacadda dalka dibadda master ku soo diyaarin karaan mudday socotaa ardaydu inay master soo diyaariyaan oo de ardayinka gudaha dalka baxay wadamo kala duwan ee dunida ay tageen master kala duwan iyo PhD iyo waliba ka sii saray soo diyaariyeen. waxa anaga taas noo sii dheer jaamacaddu waxaa leenahay barnaamij la yiraahdo exchange program oo ardada jaamacadda qaybo kamida kulliyada kamida sanadaha waxbarashadooda kamida aan dibadda u dirno ay jaamacado waaweyn oo East Africa ku yaal ay tagaan sida Nairobi iyo Makerere iyo Imperial oo kale ay ku soo qaataan sanad ka tirsan sanadka maaragtay shahaada bachelorka ay diyaarinayaan. masterkuna muddiiba ardadu aadayaan dibadda meelo kala duwan haddii Asia tahay iyo haddii Africa tahay ay ka soo diyaarinayeen marka taasna waa jirtaa xiriir noocyo xiriirka jaamacadaha caalamka aad leedihiin waa sidee jaamacadaha caalamka xiriirada jaamacadaha caalamka oo dhan xiriir lama leeyin laakiin jaamacadaha sida iska caalamka adduunyadu hadda waa regional tusaale ahaan Arab League African Union East Africa jaamacaduhu waxay u kala jiraan maaragtay waxa jira regionalkaas marka waxaan la leenahay partnership aad wanaagsan la leenahay tusaale ahaan East Africa oo kale
jaamacadaha carabta ku midoobay East Africa oo kale wada shaqeyn aad u fiican jaamacadaha Nairobi iyo Makerere iyo Mbarara iyo wada shaqeyn aad u wanaagsan aan leenahay muddo badan oo 5 sano sanadkii 6 ay socotaa oo maleynaya oo ardaydaas aan banaanka u dirno maaragtay dad khubarada noo soo diraan mararka qaar meelaha aan isleenahay waa in ka wanaagsan yihiin ay naga caawiyaan marka wada shaqeyn aad u fiican jaamacado badan la leenahay okay ardayda u baahan qaybta master shuruudaha laga wadahay waxay ku xiran tahay ardayga masterka diyaarinaya jaamacadda oo apply gareynayo anagu wax maaragtay gaar anagu nooga baahan yahay maleesha ay soo qaadanaya jaamacadahaas sida iska caadiga inta badan waa la isku dhow yahay waxa kamid ah inuu waxbarashadii bachelorka curriculumkii loo baahnaa soo qaatay oo ku haboon meesha uu rabo inuu takhasuska sameeyo ka bacdina meelaha qaar waxa laga yaabaa language requirement anagoo kale English spoken country maahan wadamada haduu aadayo inay language requirement waxa kale u baahan yihiin marka jaamacadaha kala duwan oo adduunyadu ardayga masterka aadaya the requirement iyo criteria kala duwan u baahan yihiin laakiin anaga dhinaceena wax kale laakiin ardayda banaanka aadaya jaamacadii ku xiran tahay apply gareynayaan hadba okay hadda xilliga ardayda fasax ay ku jiraan sababo la xiriira COVID-19 ama cudurka coronavirus maxaa qorshe ah aad ardayda kula kasheen ama ugu tasheen sida u sii wataan ardayda waxbarashadooda COVID-19 waa dhacdo aan hore loo filinayn oo cusub oo sida xawaare dhaqsi loo la yaab leh adduunyada hal mar ku kala gaartay saan idaacadaha ugu maqlaynay China ka jira hal mar gundaheenan ka aragnay marka jaamacaddu markii arintaas u dhacday waatii dawladdu fasaxday in ay amartay in la isku imaan markii arintaas u dhacday jaamacaddu waxay ku qasban tahay carabtu ku ilaa alxaajatu umul iqtiraac duruufaha jireen la noolaano marka jaamacaddu waxay waxbarashadii u rartay online platforms kala duwan anagu adeegsanayna Google Classroom iyo Zoom iyo waxyaalo saas oo kala marka si caadi ay hadda galaasyadii u wadnaa waa challenging oo waxaan hore ugu talagalna ma ahayn waxaan hore ula qabsanay ma ahayn waa wax cusub laakiin ilaa xad maaragtay aad iyo aad aan ugu guuleysanay team engineer jaamacaddu soo keentay oo ilaa 5 qof ka kooban oo technically macallimiintii ardayda tababar iyo maamulkeeba marka deer shaqadeena dhan haday tahay midda maamulka haday tahay shirarka haday tahay waxbarashada waxaan u guurnay online platforms kala duwan okay jaamacadda ma ka qayb qaadataa waxyaabaha arrimaha bulshada haday ahayd wacyigelinta haday ahayd arrimaha gurmadka aad iyo jaamacaddu wadanka Soomaaliya waa xilli muddo badan xogaa awoodda dawladda Soomaaliyeed waa tabar yareed marka jaamacadaha iyo hay'adaha kale oo civilianka ayaaba waxay wadeen markasta waxa soo kala dhacaan ama abaaraha ahaato ama ha ahaato waxyaalo kala daadadka ha ahaato jirooyinkii waxyaalaha soo booda jaamacadaha anagu kamidna kaalinta koowaad ugu jirnaa markasta waa la shiraa markasta waxba la aruuriyaa waxa ugu dambeeyay hadda COVID-19 anagu wasaaradda kaashanayna ayaa ardada maaragtay loo wasaaradda qaralaha siiyay loo qabto tababar ardada dhan la kala gaarsiiyay awareness-ka guud iyo sidii la saga ilaalilaha iyo sida loo dhaqmo maaragtay cudurka COVID-19 ardaduna waa gudbiyeen oo ardooyinka kale iyo maaragtay guryahooda ay u qaadeen awareness-ka saas oo kale inay gaarsiiyaan marka waa shaqadeena koowaad oo jaamacad laga rabo inay outreach inay bulshada wax ku soo celiso maxaa kula dardaarmaysaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka gudihiisa waxaan kula dardaarmaa ardayda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ka barta inay dadaalaan waliba xaaladan gaarka oo hadda lagu jiro markuu isbedel dunyada ka dhaco badana dib looma soo noqdo marka aad iyo aad waxaan kula dardaarmaa inay dadaalaan hadda looma baahna in galaasyo la yimaad waxa laga yaabaa inay muddo qaadato in galaasyo dib loo soo noqdo marka inay online platformska ay xoog saaraan oo waxbarashadii marna ka hakanaan aad iyo aad ugu dardaarmayna ay arintaas ku dadaalaan